الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. kulanti waxaana wanaagsan daawaday halkan waa TV-ga gobolka Banaadir ee Banaadir TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay shacabka Soomaaliyeed. barnaamijkan waa barnaamij gaar ah waana barnaamijka sida looga ciiday maanta oo kaleeto magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena. qodobada aynu soo qaadan doono oo aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxaa qayb ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu boqolaal markaasi shacabka Soomaaliyeed uu kula tukaday salaada ciida Carafo masjidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho. hadaba madaxweynaha ayaa halkaasi ka hadlay warbixin ayaan arrimahaas idiin haynaa. sidoo kaleeto waxaynu soo gudbin doonaa barnaamijkeena gaarka aad ku daawan doontaan magaalada munaasabada markaasi Ciidul Adha ayaa si weyn markaasi looga ciiday magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya iyadoona shacabka Soomaaliyeed ay muujiyeen farxadda iyo damaashaadka ku aadan maalmaha ciida Carafo. hadaba warbixin ku aadan ayaynu barnaamijkeena ku eegi doonaa. sidoo kaleeto waxaa maanta magaalada Muqdisho iyadana laga daahfuray ololaha qaybinta udxiyada oo ay wado hay'adda Qadar Jaarati waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kaasoo si rasmi uga bilowday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo ayna ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 7,300 oo qoys oo danyar ah. warbixin ayaan arrimahaasna daawadayaal idin kaga haynaa. sidoo kaleeto waxaan idiin soo gudbin doonaa oo ku daawan doontaan qaar kamid ah shacabka Muqdisho ayaan mikrofoonka TV-ga maamulka gobolka Banaadir la dhaxqaadnay iyagoona nala wadaagay dareenkooda markaasi ku aadan farxadda maalinta ciida Carafo iyagoona markaasi sheegay in maanta ay tahay maalin qiimo weyn ku leh bulshada muslimiinta ah. hadaba shacabka Soomaaliyeed oo halkaasi ka hadlay ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa. sidoo kale daawadee waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena oo aad markaasi ku daawan doontaan shacab aad u fara badan ayaa maanta salaada Ciidul Adha markaasi ku oogay masjidka Waalideyn wuxuu ku yaalaa degmada Garasbaaley iyadoo oo dadweynahana ay muujiyeen farxad iyo reereyn ku aadan munaasabada ciida. hadaba warbixin ku aadan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa. qodobadaas ayaan soo koobi doonaa daawade barnaamijkeena gaarka ah sida looga ciiday guud ahaan Soomaaliya iyo dibaddaba ayaynu ku eegi doonaa. goordhow diyaar garow barnaamijkaas oo faahfaahsan. isaga kuwabaale ilaahataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida وهاك داودي waxaynu ku bilaabi doonaa qodobada aan markaasi idin soo sheegay oo markaasi sida looga ciiday magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa boqolaal kamid ah shacabka Soomaaliyeed kula tukaday salaada ciida Carafo masjidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada barakeysan ee ciida Carafo iyagoona alla uga baryay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu ku manaysto nabad barwaaqo iyo horumar waarta. madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in geediga dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya uu marayo marxalad taariikhi ah oo ay go'aankiisa garwadeen ay ka yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed wuxuuna adkeeyay muhiimadda ay leedahay midnimada. hadaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa halkaasi ka hadlay. maanta waa maalin weyn waxyaabihii caadiga ah ee iskula dardaarmi jirnay ma iloobayno oo ahayday in la isku naxariisto in walaalka gacantiisu gaaban tahay in la kaalmeeyo in ilmaha deriska ah ay la ciidaan ilmahaaga oo ilmahaaga siday u faraxsan yihiin kuwa deriskana ay u faraxsanaadaan in la garab istaago dadka maxaan ku raadaaye danta yar si looga farxiyo maalintan farxadda weyn ah oo maxaan ku yiraahdaa ummadaha muslimiinta meel kasto ay joogaan la farxadda. intaas kadib walaalayaal ummadda Soomaaliyeed sida aan mar walba aan ku celceli jirnay wada dheer oo
aad iyo aad u dhibadan sannado badanna soo qaadatay ayay soo martay hayaankaasi weli waa socdaa gaabis waa nagu jiraa waa gaabinaynaa laakiin waa soconnaa maalintii jamhuuriyadda saddexaad la soo aasaasay 2000 taariikhdu markay ahayd ilaa iyo maanta Soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa horumar iyo horay ayay u sii talaabsanaysay u socotay dabcan ummad waaye dabcan hoggaanka talinaayo waa mid bani aadam ah khaladaadkiisa leh gaabiskiisa leh laakiin muhiim waxa ah in la socday oo aan hal meel lagu nagaanin waxaan rabnaa socodkaasi inuu sii jiro in la sii dheereeyo in maxaan ku iraadaayay socodkaasi socod nabadeed uu noqdo socod dawladnimo uu noqdo socod amni dalku uu ku helo inuu noqdo waxaan rabnaa waxyaabana waa Soomaaliya mushkiladda haysata mushkilad siyaasadeed waaye siyaasadda wax walba inaanan siyaasadayn ayaana laga rabaa wax walba in aan maxaan ku iraadaayay aanan siyaasadaynaana laga rabaa dhaqaalaha aanan siyaasadayn amniga aanan siyaasadayn isku duubnaanta iyo wadajirka ummadda inaan siyaasadayn siyaasadana sideeda mustaqbalka iyo sidii loo qurxin lahaa ayay ka hadashaa ninkii mustaqbalka ra'yi ka qaba ee sida loo soconayo loo oolayo berri ra'yi ka bixin kara waa kaas kan siyaasi waaye la dhihi karo laakiin ninkii aan berri aan ra'yi ka qabin Soomaaliya siday u ekaanayso dadka Soomaaliyeed hiigsiga ay tilaabsanayaan berri aanan dadka u tilmaami karin tusi karin kala doodi karin ku hagaaji karin ee ku mashquulsan shalay iyo wixii dhacay iyo shalay wixii naga khaldamay iyo shalay wixii aan weynay iyo shalay wixii naga gaabtay hadda shalay waa shalay ma noo soo noqonayso mana daaweyn karno waxaan u baahannahay haddii wax naga khaldameenna inaan maanta ka tashanno inaanay naga khaldamin hadday wax noo saxmeen shalana wixii noo saxmay inaan sii xoojinno oo aan horay ugu sii soconno shalay dawladnimaa noo bilaabatay meelo fiicanay soo martay marka maantana inay sii qurxoonaatay waan aragnaa waana sii qurxoonaynaynaa haddii alla yidhaah dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay guulaha dawladnimada ah oo ay gaareen ha ilaashadeenaan leenahay amniga ha la ilaaliyo yaanan laga tanasulin yaanan loo noqonin meelo xunxun yaanan dib loo go'anin wixii shalay la soo maray yaanay nala fiicnaanin aan ka taxadarno zoobe iyo wixii jiri jiray iyo hoteeladii iyo wadooyinkii iyo masaajidii la isku dhaxdili jiray la isku qarxi jiray meel loo noqdo maaha waxa u sabab ahay oo argagixisada keenay inay sabab noqoto dawladdeena oo daciiftay dawladda oo tabar darneed dawladda oo curdun ahayd maanta dawladdu way soo kortay way soo xoogaysatay rag Soomaaliyeed dhalinyaro u dhimanaysa dhiigga u daadinaysa ayaa u soo baxday Soomaaliya waan aragnaa isbeddelka ugu yaran xagga amniga ka jira magaalada Muqdisho waa midaali magaalooyinka kale oo dhan waa sida waxaan rabnaa in aanan waxaas dib loo celin dib loo noqon ninka siyaasiga ah ee siyaasiga fiican ah waa kan berri ra'yi ka keeno berri say u oolaysaa berri nooce ah ayaa Soomaaliya la rabtaa seed rabtaa berri Soomaaliya inay u taallo see loogu gudbaaho loogu tagaa meeshaas halkeenni maan joogina Soomaalidu way ka maamaaday bartiis yaqaan bari uma kororto ninkii shalay wixii aan suubinay aan joogna qaba maya shalay wixii aan suubinay wixii wax ugu fiicnay maaha waa sii qurxinaynaa waa sii fiicnaynana maanta waxa aan samaynaynaa lafteeda wixii wax ugu fiicnay maaha barraan ka sii qurxinaynaa ka sii fiicnaysiinaynaa laakiin haddii aan dhahno lama dhaqaaqayo lama soconayo wixii shalaahiba wixii fiicnay kiyaa fiicnay aan joogno ma jirto waxaan intaas dheer ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego walaalayaal yaan la idin cabsi gelinin baraayaa dhacayso inta laga soo butaaca qurac iyo jaamac iyo hereer qansaxa qoryo la soo booda dalka waa la dumi rabaa waa la kala tegi rabaa nin walba tuuladiisu u noqonaa waxaasi waa waxa nasiib darrada ah in nin ummadda inuu hogaamiyo rabo waxa uu ku hadaaqo in ay waxa noqdaan waa nasiib darro waa nasiib darrooyinkii aan maxaan ku raahday ka tagashanay oon ka nimiday wax dumayo iyo cid tuulo u noqonayso iyo cid kala tegaysa iyo wax burburaya ma jiraan
وهاجاك داودة ولي برامجك أياد مركاسي داوني سانجارك مناسبة عيد الأضحى أيا إيضا سوين مركاسي لوجا عيدي مقالة مقدشة يجود هامبا قبل لذا ذلك أيضا شعبك الصومالية دي موجين فرحات يداماشات كؤادن مالمها عيدا مسجدك إيو فقارياش ووين أيانا ساكن لقيتو كذي صلاة عيد الأضحى هذا وربحين أمورها سكو آدن وحا إنوسو كوبيا وريهن إبراهيم عاجي guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay dadweynaha si nabada ugu iidayaan maalinta koowaad ee Ciid al-Adha halkan aan ku suganahay waa wadada Makka al-Mukarrama ee magaalada muqdisho waxa halkan ku soo baxay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo masaajidada ku yaala hareeraha wadada Makka al-Mukarrama ee magaalada muqdisho ku oogay salaada Ciid al-Adha qaar ka mid ah dadweynaha ayaa la hadlay telefishinka maamulka gobolka Banaadir iyaga oo u dareen hadlay sida ay maanta nabada ay ugu dukanayaan magaalada muqdisho horta ku dhawaay عيد مبارك دمان مسلمين حكيمة مجاعي وعتيد عيد الشيخ عبد الرحمن وحكيمة دقمة جرسبالي قاران وقارته مركع انت حق سلامة صاحبك يفوعوا يصاحبك راش مركع عليه عيد مبارك انت حق سلامة وهذا حبيب عمر قني وهو حكولاه عيد مبارك عيد وناكشن دمان وحكولاه تكلك سلامة ولا شيء حمد عيسى عبد الرحمن waxaa kaloo dadka salaama walaalka daahir ciise abdiraxmaan dhammaan waadii salaama yinaadii iqro kulli iyo anisiya male dhammaan waadii salaama ciid mubaarak idin leeyahay magacay waa Shucayb Maxamed Cabdulla Samatar oo waxaan ka imaaday saaxiib degmada Garsbaale kaasatan ugaarta waxaan inta ka salaamaan aad iyo aad ugu qaaliyo saaxiibkayga وانا صاحب لي كرنا ولالك محمد عبد احمد ليرا محمد عبد احمد صديق او قبلوا دحي جوga gaasatan baxda صاحب سلام kale ilaaba salaada barka ogsore marka inta waxa ka salaama hooyaday macaan inta cismaan musajiro hooyayna sidoo kale gobolada dhex joogto hooyay macaan toog salaama boqolkiiba boqol ciid mubarak ku leeyahay inta waxa ka salaama familkay walaalay oo dhan ciid mubarak ciid wanaagsan waa ku dhawaay telefishinka gobolka Banaadir ciid lamida dareenkayga iyo farxadeeda ma la soo koobi karo waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan geeyga Soomaaliya gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir marka ugu horeysa ay waa Saciid Ali Macaad waxaan ka imaaday degmada Hodan khaasatan xaafadda Taleex waxaan aad iyo aad u faraxsanahay maanta inaan la qaybsado farxadda raaraynta dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr cibaadadii acmaashi wanaagsaneed aan soo sameynay إلهي سبحانه وتعالى أنا أقبله وحنا كان فرعد عيد أنا كلا خيبسنا دمان أمد الإسلام كجارهان أمد الصوماليات إسبيشال وحنا كان عيد ونكسن أكليه فميل كيجا هو إذا معن أبي معن أصحاب تيدا دمان ذكر البلد كي قفل بو من سب كي ميزانية دي قرنا وعن ليه عيد باش برواق على نوجرسي كل عام وأنتم بالخير وكل مقعي ونجم دقيق عبد القادر وحكسو استيمان تدقمة هو ذاك المسلمين وحاليا عيد مبارك كل عام وانتم بخير halkan salaama aabay macaan deeq عبد القادر عيد مبارك dhamaan asxaabta walaalahay dhamaan all family عيد مبارك aleeyaa wallahi ni dareenkayga aad iyo aad u sareeya ciid wanaagsan Ibrahim Xaaji walaalkay ma telefishinka maamulka gobolka Banaadirne aadan ugu mahadcelinaa jaaniskana isiyeen waxaan taaniyad hambaliyo u diraa dhamaan ummadda muslimiinta gaaraan ummadda Soomaaliyeed familkayga dhamaan hooyadii ugu horeyso aabahayga adeeradeeda walaalahayga iyo caruurteeda dhamaan eeli asxaab Soomaaliya oo dhan insha Allah ciidan ciideeda kale bashbashi barwaaqo iyo maraare iyo caafimaad aan u rajeynaa iyo barwaaqo Ibrahim Xaaji Banaadir TV muqdisho waxaa maanta magaalada muqdisho markaasi laga dahfuray ololaha qaybinta udxiyada oo ay wado hay'adda Qadar Charity waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kaasi oo si rasmi uga bilowday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 7300 oo qoys oo danyar gudoomiyaha Qadar Charity Soomaaliya ayaana sheegay in barnaamijka udxiyada uu yahay mid sanadle ah oo lagu taageerayo dadka tabaalaysan si ay markaasi ula qaybsadaan farxadda ciida bulshada inteeda kaleeto oo ugu dambeynna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa munaasabada ka hadlay mashruuca waa sanadle sanad walba hay'adda Qadar Charity iyo sodma gobolka Banaadir sanad walba waxaan ka wada shaqeynaa inaan la ciidno ama ciid siino qayb kamid ah bulshada Soomaaliyeed
oo aan runtii farxadda ciidda ku gaarsiino hilibka udxiyada sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadihii soo socday dadaaladii soo socday runtii mudane guddoomiye 3 meelood oo Soomaaliya ka mid ah ayay shaqadu saaka ka socotaa halkan ayaa ugu weyn oo gobolka Banaadir ah iyo Hargeysa iyo magaalada Baydhabo guud ahaan 7300 oo neef ayaa runtii Soomaaliya oo dhan la gaarsiin doonaa numberka ugu badanna waxaa runtii lagu gowracayaa gobolka Banaadir waxaan idinkaga mahadcelinayaa dabcan wada shaqaynta iyo dadaalka iyo hagista aad ku wada leedihiin hawshan oo la'aantiin aysan noo suuragali lahayn waxaan juhdi badan ku bixinaa waxaan dadka gaarsiinayno inay noqdaan muwaasifaadkii iyo macaayiirtii aad marka horeba nala wadaagteen oo ahaa udxiyo iyo muwaasifaadkeeda waxaa noo dheer inaan runtii waqti badan gelino in meesha lagu gowracayo ay noqoto meel ku habboon gowraca waxaa la soo maray maalmo aad u qiimo badan adduunyada ku qiimo badan aakhira agtiisana maxaa tabaab badan u yaalo marka sidaa darteeda maanta waxaan u joognaa ayaam tashiiq aan ku jirnaa maalintii koowaad oo ciidul adxa mubaarak ay noo bilaabanayso waxaan rabaa ugu horeyn qadar jaarati iyo baahwadaagta dhammaan hay-adaha gargaarka udxiyada wado dhammaantood waa mahadsanyihin khaasatan qadar jaarati oo mahadcelinaynaa sida wanaagsan asluubaysan oo qawaaniinta caalamiga ay ku jirto in ay waxa ay ummadda Soomaaliyeed ay siinaysa ay kargaraysay ee soo qaaday standard ahaan ee u keentay summit kawaanka summit ama xarunta summit waxaan ku soo aragnay maxaa la yiraahdaa qalab aalaad oo dunida la jaan qaadi karo oo casri ah oo maxaa la yiraahdaa sanitation ahaan hygiene-kii dhammaanba maxaa la yiraahdaa ka feejigan in cudurrada faafa in aysan xoolahaas ku imaanin high quality ah waxaan gaarsiin doonaa degmooyinka maamulka gobolka Banaadir guud ahaan goobaha barakacayaasha dalka sida degmada Kaxda iyo Dayniile iyo Gubadle dadka degan waa gaarsiin doonaa oo dadka maxaa la yiraahdaa aad u taag daran ama funnel group wax la yiraahdo dadkaasna waxaan rajayn doonaa insha Allah udxiyadaas inay gaarto 3 maalin waa 3 maalin aad u qiimo badan qof walba Allah subhanahu wa ta'ala wax siin waxa uu baaqina insha Allah inuu dadkaas wuxuu gaarsiin karo gaarsiyo udxiyada fadliga ay leedahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay fasalli rabbika wanhar inna shanika wal abtar maxaa la yiraahdaa xadiis kale waxaa jiray ma amal aadam min amal yawm an-nahr ahabbu ila Allah min azaq ad-dam marka amal qabto waxa ugu khayr badan maalmaha sheekh wax gowracaya ugu khayr badan annagana ka maamul ahaan waxaan astaynay goobo badan oo arintaas maxaa la yiraahdaa la gaarsiiyay goobahaasna insha Allah way gaari doonaan saacadaha soo socda waa hagaag daawaday qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan markaasi isla soo gaarnay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaan makrofonka Banaadir TV la dhex qaadnay iyagoona ka hadlay ama nala wadaagay dareenkooda markaasi ku aadan farxadda maalinta ciida Carafo iyagoona markaasi sheegay inay tahay maalin aad u weyn muslimiinta meel kasto markaasi ay joogaan dadka aan wareysanay ayaana muujiyay farxad iyo reereyn sidoo kale shacabka ayaa alla uga baryay nabad iyo barwaaqo horumar guud oo dalka ka hana qaada gaar ahaan caasimadda Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abdishakuur Cali Maxamuud waxaan maanta si nabad ugu ciidnay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dayniile ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan ciidan ciideeda kale nabad iyo barwaaqo bashbash Allah nuu gaarsiiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين الصوماليين دمان تود ميلو بيجوغان waxaan leeyahay ciid wanaagsan si nabad ah ku ciidnay wadankeena waa nabad ilaahay noo daayo ciid wanaagsan aan leeyahay muslimiinta meel walba joogaan dal iyo dibadba bismillaah magacaygu waa Xasan Cabdiraxmaan waa maalin ciida maalin aan faraxsanahay dhammaan shucuubta Soomaaliyeed iyo muslimiinta ay faraxsan yihiin waa ku faraxsanahay ilaahayna soo gaarsiiyay waana ku mahadnaqaynaa farxadda iyo naasaadka iyo quruxda ilaahayna siiyay ma hada ilaahay u celinayna waa magacaygu waa Ismaaciil Cumar Maxamed waxaan deganaa degmada Xamarweyne ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan alxamdulillah ciid waxaan ku ciidaynaa nabad waa aadan ugu faraxsanahay eeli qaraawo dhamaantii waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideedan ilaahay nabad ha noo gaarsiiyo wadankana nabadda iyo amnigan ilaahay ha noo badiyo intaan iyo in ka badan gobolada dhan inaan nabad ku tagno waa jeclaan lahayn anoo dhulka marayno safrayno xorriyad ah insha Allah ilaahay wadanka noo hagaajiyaan lahayn ciid wanaagsan dhamaantii waxaan ku faraxsanahay nabadda ku iideeno ilaahay ka soo waxa sameeyay ciidamada amniga waana ku maasanyiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan aniga oo ah Mukhtaar Cabdiraxmaan Mukhtaar ciid wanaagsan ayaan leenahay ma sha Allah si wanaagsan ayaa loo iidayaa magaalada Muqdisho waa ku faraxsanahay wax dhib ma qabno alxamdulillah waa kaasa anaga
maya maasha allah wax kale ay kala duwan tahay male iid waa iid wax ay ku kala duwan tahay male midda yar iyo midda weyn waa wax raxmad oo ilaahay noo soo dhiibo waay maasha allah kulligiin waa idin salaama si aad wada dhantihiin asxaabta soomaaliya kulli walaalahayga kulli inta joogto inta maqan intaba waa salaamayaa magacayga xasan cali muuse waaye aad baan u faraxsannahay kullu caam wa antum bikheer acad allahu calayna wacalaykum wacalaa cibaadi allah maanta waa maalin ciid aladxa ciid allaxam maanta waxaan ku faraxsannahay maadaama magaaladeena nabad ay noo tahay aan ku ciideyno si nabad ah cabsi ay jirin amniga oo noo sugan yahay maasha allah saan iisi ka fiican waa sii rajaynaynaa ilaahay hadduu ka raali noqdo maanta waa maalin farxadeed waa ciid soomaaliya oo dhan kullu muslimiin wixii muslim caalamka ku nool maanta waa ciidooda waaye ciidulmuslimiin allah ciidulaxam mafaante maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ciid wanaagsan meel walba ay joogaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ciidaani si fiican ayaan u iidnay ciideeda kale insha allahu tacaala ilaahay anagoo nabad qabno oo bishaaro qabno ilaahay ana gaarsiiyo waxaan ka salaamayaa eheladeeda iyo qaraabadeeda oo dhan waxaan leeyahay ciideeda kale insha allah caafimaadka malaan lagu gaarsiiyo waa hagaag daawadee qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan markaasi isla soo gaarnay shacab aad u fara badan ayaa maanta salaada ciidul adxa ku oogay masjidka waalideyn wuxuu ku yaalaa degmada Garasbaaley iyadoo ayna dadweynaha ay muujiyeen farxad iyo reereyn markaasi ku aadan munaasabada ciidul adxa sheekh aadan khayrow oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa shacabka kula tukaday salaada ciida masjidka waalideyn oo ku yaala degmada Garasbaaley waxaana kadib jeediyay khudbad muhiim ah oo ku saabsan fadliga maalinta Carafo iyo muhiimadda ay leedahay isku duubnida iyo isxafinta iyo garab istaaga dadka danyarta ah sideen u noolaynaa shacaa'irta ilaahay subxaanahu wa tacaala maantoo kale waa maalin farxadeed waa maalin ciid ilaahay subxaanahu wa tacaalana ummaddaana uu siiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam marka uu soo galay magaalada madiino dadkii reer madiino waxay lahaan jireen 2 maalmood oo markaasi ay weynayn jireen 2 maalmood ay farxi jireen nebiga ayaa weydiiyey sallallahu alayhi wasallam ma haadani al-yawman labadan maalin maxay yihiin waxay yiraahdeen yawmaani kunna nal'abu fiihima fil jahiliya wa 2 maalin aan ciyaari jirnay xilliga jaahiliyada markaa nebigu wuxuu yiri qad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr ilaahi wuxuu idinku bedelay 2 maalin oo ka khayr badan maalinta adhaha ciidul adha iyo maalinta ciidul fitr waa 2 maalin oo maalmaha kale oo dhan markaas la farxo oo festival iyo ciidaha marka la sameeyo labadan maalin ayaa ka khayr badan sida uu nabiga kaleey salaatu wasalaam noo sheegay ilaahay baa marka maalmaha kale oo dhan intuu markaas naga daay 2 maalin buu noo soo reebay oo aan faraxno oo shaciiro u ah oo astaan u ah labadan maalin marka sideen u weynaynaa sideen u noolaynaa shacaa'irta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku noolayn karnaa inaan muujino marka ugu horeyso maalmahaasi inaan qalbigeena ka weynayno 2 maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo noo jideeyay inay yihiin inaan qalbiga ku qabano inaan u aragno shaciiro iyo astaamo inay yihiin ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر إلهي سبحانه وتعالى وينينتدي waxay kamid tahay alla ka cabsiga qalbiga ay markaa kamid tahay labadan maalin waxa lagu weyneynaya oo lagu nooleynaya in markaasi salaadaha la ilaaliyo salaadaha in waqtigooda lagu ilaaliyo waayo salaadaha waa a'zamu sha'air ba'da shahadatayn sha'airta kan ugu weyn shahadataynka ka gadaal waa astaanta diinta ilaahay markaasi ay ugu weyn oo dadka ay muujiyaan weeyaan ma ahan marka labadan maalin iyo maalmaha marka ciida in markaasi salaadaha la dayaco dad badan waxaad arkaysaa maalmaha ciida qaarkood hurday kaga tagaysaa qaar kamid ah markaasi maalmaha say isaga ciyaarayaan ayaa waxa laga yaabaa salaadihiiba inaysan tukanin sida marka looma baahna salaadu in la dayacay waa diintaadii oo dayacday salaada ka tagisteeda nabiga aad buu u adkeeyay ilaa gaalnima la gaarsiiyay al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar qofka muslimka iyo ruuxa gaalka
waxaa lagu kala saaraya waa salaada qofkii salaada ka taga markaa wuxuu ka tagay rugni aad u weyn waa hagaag daawade guud ahaana barnaamijkeeni gaarka ahaa ayaan intaasi ku ekeenayaa barnaamijka waxaa halkan idinkaga tabinayay anigoo ah cabdiqadar maxamed macalin kalgacal intaan ku kulmi doona barnaamij lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeliyo الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا